dagaalkan oo xoogiisa ka dhacay xaafadka Kaawagoday degmada Wadajir ee gobolka Banaadir ayaa u dhaxeeyay ciidamada macawisleyda ee ku xoogan degmadaasi ciidamo booliis ah iyo haram cad oo isku dhinaca xiisadaasi dagaal ayaa timid kadib markii ay iska hor yimaadeen ciidamadan booliiska iyo haram cadka oo wada socday iyo kuwa macawisley ah oo foodo had iyo jeer ka sameeya xaafadda Kaawagoday waxaana halkaasi ka qarxay dagaal abaar 4 saac ee habeenimo iyadoona dagaalkaasi uu qaatay ku dhawaad 1 saac inta la xaqiijiyay waxa waxyeello ay ka soo gaartay 9 qof labana ay geeriyootay labada qof ee geeriyootay ayaa la sheegay inay ka tirsanaayeen ciidamada booliiska Soomaaliya sidoo kale 7 qof ee dhaawaca uu soo gaaray 5 kamid ah waa dadkii shacabka ahaa ee lagu dul dagaalamay halka labada askari ee dhaawacantay ay kamid yihiin dhinacyadii halkaas ku dagaalamay dagaalka ayaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana baqdin xoogan ay soo food saartay dadka shacabka ah ee degan xaafadda Kaawagoday ee degmada Wadajir kuwa uu sameeyay habeenka oo madow in ay guryahooda ka barakacaan iyadoo lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan qof kamid ah dadka deegaanka ayaa ii sheegay in khasaaraha uu intan ka badnaan karo maadaama xilli habeen ay ahayd rasaasta iyo hubka culus ee la isku riday ayaa sidoo kale meelo fog ay waxyeello ka soo gaartay dad shacab ah waxaana dadkii shacabka ahaa ay waxyeellada ka soo gaartay dagaalkaasi ay ku kala sugnaayeen xaafadaha siliga Amerikaanka nasteexa iyo argada oo dhamaantood ka tirsan degmada Wadajir dagaalkan wuxuu ka bilowday nin militariya oo qora wato ciidankan haram cad dhahan qoraga dhig qoduu ku bilowday lamarkii aagu u galay kuwa kale oo wacday meesha dagaalku waa balaartay dagaal hal saac socdo uu qaatay 5 qofood shacabna waa ku dhaawacantay walada macawiisleedana halna ka dhaawacmay boolis soo gurmaday oo haram cad la soo sabtay oo ahaa ciidankii loogu talagalay isdooska 4 qof ay ahaayeen 4tii midna waa ka dhaawacmay midna waa ka dhintay labadii kalena meel ay macnaha hadda ku sugeeyeen lama oga haram cad xaqooda waxa ka dhaawacantay hal wiil sida laga warqabo booliskana halaas sidii uga dhaawacmay oo dhintay inta shacabna 5 qof ku noqotay oo labana ay ku dhaawacantay goobta dagaalka saddexna ay ku dhaawacantay laamiga Xaawataako iyo Nasteexo mudahan qaatay oo kuwa weyn la isku ridaayay dadkii guryahoodii ee qalqal xalaytada ka taxay xataa Kaawagoday saakiina marka iyadoo bandoona oo jiro dadkina ay inta afureen aysan meel aadi karin guryahooda joogan waxa loo kortagay bashiike iyo BKM iyo aan la isugu aabad yeelin marka waxaan leenahay ilaahay ummadan muslimka meelna cudurka ka haya meelna dawladda marna badda galaysa marna isku dul saasaynayso ilaahay ka badbaad waayo aan manaqan sargaal lagu magacaabay Yuurey waa jiriyaa ciidanka booliska oo joogay isgoyska Kaawagoday meesha reeqan 3 kulleeda sargaalkii ciidankaas hogaaminaya way xabadii uu maqlay meeshii macnaha ku baxay asagoo 4 askari wato 4 askari midna laga dilay asagana la dhaawacay isbitaal Madiino dhaawaciisa yaala maamulka degmada Wadajir ee uu hormuudka ka yahay Cabdiraxmaan Maxamed Cali ayaa ku guul dareystay wax ka qabashada amaan dirida ka jirta xaafadda Kaawagoday iyo sidoo kale dhibaatooyinka ay wajahayaan dadka shacabka ee xaafadaasi degan oo mar walba dhibaato kala kulma koox macawisley isku magacaawday oo muddooyinkii la soo dhaafay xaafadaasi ka soo ifbaxday kuwa oo dadka shacabka u geysta dil dhaawac iyo kufsi sida dadka deegaanka ay sheegayaan walaal maamulka wax uu qaban karo malahan waayo meeshii xeradhan oo militariga ku taalo saraakiisha militariga askarti ma xadidi karaan askarigan gurigiisa imaana dariisku dhigana qorigiisa iyo wuxuu qaadanaa iyo booshkiisa jaagiyo ada mar iga isku qaldama mar niishaga ciidamo kale oo shabaab soo dhaxgalay mar dawladda dhexdeeda imaanayso ciidamo oo dariis wato waxa badayna waa macnaha yaa wax tari kara waay oo hal nin oo kamid ah dila taabtana waa isku soo gurmanayaan hadii xariir qoryaha dhigal ilaa hataa nin walba qoryo hogaamiye kooxda ugu guriga u tiirsan ma la xadidi kara marka dawladda inay wax ka qabato maana dawladda halkeedana xabado noqday dadka ma dhishika dadka korido kama naqaan sida ilaahay ka dhigay noqonaysa laakiin shacabka aad iyo aad u niyadsan shacabka Kaawagoday hadayna tahay dhanka dawladda iyo hadii ay tahay dhanka ciidamadan oo deegaanka ah dagaalkii xalay ka dhacay degmada Wadajir dagaalo la mid ah iyo dhibaatooyin intan ka badanba waxaa sidoo kale degmadaasi la qaba qaar kamid ah degmooyinka gobolka Banaadir waxaana kamid ah degmada Kaaraan oo hadda maamulka degmadaasi lagu eedeynayo inay hormuud u yihiin isku dhacyo mararka qaar dhexmara ciidamo ka wada tirsan dawladda federaalka Soomaaliya Abshir Kaaraan ayaa kamid ah gudoomiyaasha laga cabanayo waxaana shalay degmadaasi lagu dilay nin ganacsada ahaa oo magaciisa lagu sheegay Jimcaale Nuur Muxudiin dilka ganacsadahaasi waxaa lagu eedeeyay askari ka tirsan ilaalada gudoomiyaha degmada Kaaraan
dhibaatooyinkan iyo isku dhacyada ciidamada ee caadada ka noqday qaar ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir ayaa dhibaatada ugu badan waxa ay ka soo gaartaa dadka shacabka waxaana wax ka qabashadooda arrimahaasi shacabka markan ay ka codsanayaan guddoomiyaha gobolka banaadir Cumar Finish maadaama guddoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir ay ku fashilmeen sugidda ammaanka